gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo saxaafadda maanta Muqdisho kula hadlay ayaa sheegay in qorshaha maamulkiisa cusub uu ku shaqeyn doono ay soo gudbin doonaan ka hor inta aysan xil kala wareegin. Talaabadaas ayuu sheegay in ay kaga gol leeyihiin in wax habsan ah aysan gelin shaqada dawladda hoose ee Xamar. Isla markaana aan ku booqday gurigiisa kulan oo aad iyo aad u wanaagsan ka wada hadalnay, isla markaana isla afgaranay sida ugu habboon muddada xil wareejinta iyo sidii arrimahaas u dhici lahaayeen sida ugu habboon. Marka runtii gudoomiye Taabidna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa shaqada uu soo qabtay iyo muddadii uu joogay sida uu soo celiyay rajadii shacabka Soomaaliyeed. Marka sida uu sheegay ku-xigeenka, waxaan rajaynaynaa marka xil wareejinta la gaaro inaan wixii qorshayaashii iyo soo bandhigi doono, laakiin inta ka hore shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan ka codsanaynaa inay nala garab galaan, nagalana shaqeeyaan sidii xilkan weyn aan gudan lahayn. Waa mahadsantihiin. Dhinaca kale, ku-xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa isaguna sheegay in mas'uuliyiinta u magacaaban gobolka Banaadir ay iska kaashan doonaan soo saarista qorshaha shaqo ee gobolka Banaadir. Waxaan rajaynayaa hambaliye kaliya ma ahan in la isku duceeyo, waa hawl culus. Gudoomiyaha oo nagu horeeyo iyo aniga iyo inta kale tiimka la wada magacaabay. Waxaan rabaa inaan aan u mahadceliyo gudoomiyihii hore iyo tiimkii la shaqeynayay shaqadii wanaagsaneyd ay soo qabteen dhowrkii bilood ay joogeen. Waxaan rajaynayaa in meeshii ay gaarsiiyeen gudoomiyaha iyo annagaba aan halkoodii ka sii wadno oo shaqeynta ka fiican aan qabanno. shacabka gobolka Banaadirna runtii shacab aad u dulqaad badan oo xaalado intaan ka badan u soo dulqaatay oo u soo samro weeye. insha Allah waxaan rajaynayaa inaan wixii socday wax ka fiican aan ku sii darno hadduu alla idmo oo gudoomiyuhu noogu horeeyo. Isjiid siyaasadeed oo sababay in hakad ay gasho shaqada xarunta dawladda hoose ee Xamar ayaa maalmihii la soo dhaafay ka taagneyd Muqdisho, inkastoo mashaakilkaasi uu boogadhayay hadalka duqii hore ee Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ee ahaa in xilka si nabada uu wareejin doono. Haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqeyn doona arrinkaas. Mahadsanidin. Mahad badan. Alaadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.